السلام عليكم. سودو هذا صحي بيال وحنا هي إبراهيم آدم. waxa isoo gaaray cabashooyin badan oo dhanka luqadda Ingiriiska ah maadaama aan ka hadalno waxyaalo ku saabsan luqadda Ingiriiska oo aan muuqaalo badanna ka sameynay. Cabashooyinku way kala duwan yihiin, laakiin muuqaalkan waxaan diiradda ku saari doonaa qaabka ugu fiican ama ugu fudud oo aad ku xasuusan karto erayada aad baratay ama aad gain garaysay adigoon xifdin. Dadka badana cabashada ay soo gudbiyaan waxa ay tahay qofka wuxuu sheegay waan fahmaynaa, luqadda waan akhrin karaa, dhageysiga waan ku fiicanahay, waan qori karaa, waan akhrin karaa, laakiin ma hadli karaayo. Ay inta badan dadka ka cawdaan ama ka sheegtaan. Soo markii aad gain garayso erayo ama aad barato erayo, qaabkeed ku xasuusan kartaa marka aad hadlayso. Erayadan ka dhumayo markii aad rabtid in aad hadashid, haddii maskaxdaada serji badan kuu dirayso oo aad xasuusan karin erayadii aad baratay, luqadii kuma hadli kartid. Dib ay kugu noqonaysaa. Maalmo ka hor waxay la soo xiriiray walaal ka mid ah walaalaha nagu xiran. Run ahaantii aad ayaan ooga helay dadaalkiisa, waana shakhsiga igu kalifay in aan muuqaalkan sameeyno. waxaan aad oola dhacay qaabka u dadaalay, kadibna uu su'aasha ii soo weydiiyey. Waxaa la yiraahdaa Cabdicasiis ila dhageysta codkiisa. السلام عليكم أستاذي يركان عبد العزيز محمد ويركاس وراح يوتيوب أستاذ أرنا يستوي تاني لقدي باروين إمبرجريه لقدي أرنا بدنا أي حيران وقدي هذا أنا برنا دي والوايد دي وحبا كمان قبصن كرو ورك الحمد لله everything وابرتا الحمد لله grammar كي وحيالا بدن واسكتوسن listening كي واسكاجا جنايا أستاذ على ضايسته فكابولوري مع أرت reading وآخري بوقت أن jeclahay buugagta caadiga self improvement ka sheekaysa buugagtaas baan akhriyaa oo aan isku badiyo macna 10 minutes iyo 20 minutes kaliya ka akhriyaa maalinkii. Marka waxaan rabaa vocabulary macal ina advert igisiisid. Vocabulary ma xifdiya mise memorization baa ku sameeyaa oo waa ku celceliya waa ka tagaa qoraalkiisa xifdiya bas adi vocabulary tala igasi vocabulary sidaan ku improve karin lahaa teemada igisiisa qofka markii ay ka go'an tahay in uu kamera dhaliyo waxa uu doonayo ama jecel yahay waqti uma weynayo, lazy ma noqonayo, waqti uma weynayo, balanqaad been naftiisa kama qaadayo, naftiisa been uma sheegayo, exactly wixii uu doonayo ama uu jeclaa waqti ayuu gelinaya, uu baranaya qofka, uu raadinaya, dabagal badan ayuu ku sameynaya. Laakiin qofkan haddii waxaan aadan jeclayn, baahina aadan u qabin, weliga horumarka ma sameynaysid, wax horumara kama gaaraysid. waxaan kula wadaagi doonaa dhowr wado oo aad u fudud oo haddii aad qaado aan hubo in aad guul ka gaarayso Englishka. Haddaba mid ugu horeysa waxay noqonaysaa luqadda xiiso iyo jacayl ma u haysaa. Example ayaan ku siinayaa. Aniga haddeertaan kula hadlaayo muddo hadda laga joogo 25 bari ka hor ayaa waxaan bilaabay barashada luqadda Isbaanishka. Luqadda wadanka Spain aad ayaan u jeclahay, waan xiiseeyaa. xiiso badan ayaan u qabay, xiiso badan ayaan u hayay, jacayl badan ayaan u qabay in aan luqaddaas barto. 25 bari ka hor ayaan bilaabay, maanta aan kula hadlaayo wax badan ayaan ka fahansanahay. Ilaa xad xogaha waa ii bilaabantaa hadda maanta luqadda. waxaan isticmaalaa application kale yiraahdo Duolingo ayaan ka bartaa, xitaa Englishka Duolingo waad ka baran kartaa. inta badan wuxuu ku siinayaa laba option, dadka ku hadla luqadda Englishka luqadaha ay baran karaan iyo dadka ku hadla luqadda Carabiga luqadaha ay baran karaan. Carabi haddii aad taqaanid Carabi ayaa ku baran kartaa Englishka, haddii English aadan aqoonin Carabina aadan aqoonin isla Englishka ayaad ku baran kartaa, English to English ayaad ku baran kartaa. haddii markaad xiise u qabtid jacaylna aad u qabtid waxaan hubaa inaad ka milkeenaysid. aniga kadib markaan arkay inaan luqadan jeclahay ayaan waxaan go'aansaday in aan bilaabo. waan bilaabay, haddana meel fiican ayaan ka joogaa oo maanta aan dhihi karo xogaha dadna waxaa ku yidaysan kartaa ilaa xad waxaan dhihi karaa maanta Spanish waan yara fahansanahay. heerka aan ka soo gaarayna waa kaas. muddo 25 bari ayaan maraya, wuxuu ku siinaya wax la yiraahdo streak. ma gambinaysid, maalin kasta asaga kugu dhiirigelinaya. soo Duolingo waa isticmaali kartaa. qodobka labaadi waa in 5 ilaa 10 eray aad barato maalin kasto. 5 ilaa 10 eray maalin kasta in aad barato waqti badan kuguma qaadanayso. ilaa 20 daqiiqo, 10 ilaa 15 ilaa 20 ilaa 30 daqiiqo ayay kugu qaadanaysaa. xitaa uma baahnid hal saac. laakiin waxaan haddii aad jeceshahay hal saac ayaad gelin doontaaba. soo marka waa in maalinkii aad barataa 5 ilaa 10 eray maalin kasto. waa inaad gain garaysaa, waa inaad naftaada challenge uga dhigtaa.
midda saddexaad maxaad ku qabanaysaa erey kasta oo aad baratay baaris ku samee qaabka loo isticmaalo meelaha uu ku habboon yahay iyo qaab dhawaaqistiisa waa inaad baaris ku samaysaa soo marka baaristaas aad samaysid inta aad baaristaas ku guda jirtid waa in maskaxdaada ay joogtaa waa inaadan mashquulsanayn soo erey kasta markii aad baaris ku samaysid maskaxdaada ma hilmaami doonto inaad ereygii aad maaragtay soo xasuusato yacni way ku fududaan doontaa sidaan bodcastigeeni kusoo sheegnay iyo muuqaaladeeni horeba waxaan idin siiyey trig aad u fiican oo ereyada ku geengarayn karto waxaan ku yidhi youtube-ka tag kadibna raadi mawduuca aad jeceshahay in aad maaragtay dhegaysato qof kasta wuxuu jecel yahay inuu wax dhegaysto so muuqaalada aad jeceshahay in aad daawatid english ahaan ku daawo kadibna muuqaaladaasi waxaad kala soo dhexbixi doontaa yani ereyo maaragtay daily life ah ereyada sida dailyga loo isticmaalo ereyada markii wax la sharaxayo la isticmaalo marka waxaad ka geengarayn doontaa 10 ilaa 5 erey intii markaas aad ka fahmi weyso ayaad ka diiwaangelin doontaa kadibna ereyadaas ayaad baaris ku samayn doontaa markii aad ereyadaas baaris ku samaysid naftaada markasta waxay xasuusnaan doontaa ereyadaasi maskaxdaada marka ereyadaasi markasta way xasuusnaan doontaa sidoo kale marka jumlad ayaad gelin doontaa waxaad isku dayi doontaa inaad adigu isticmaasho inaad yacni isku dabaqdo adiga naftaada ku dabaqdo inaad isticmaasho yacni jumlad ayaad gelin doontaa waad qori doontaa waad ku hadli doontaa maskaxdaada mar dambe ereyadaasi ma hilmaami doonto midda afraad marka kula wadaaga marka waxay noqonaysaa practice garee isticmaal dhowr mar yacni practice ku samee waa isla jumladii aad gelinaysay yani inaad practice garaysaa haddii aad heli karto qof ajnabi ah oo aad la practice garayn karto waa waxaad u fiican waa raadin kartaa adduunka maanta yani waa online everything is social media waad raadin kartaa tiktok aad ka baran kartaa meel instagram aad ka baran kartaa snapchat yani everywhere waxaa jiro xataa facebooka qolyo maaragtay english group iyo waxyaalaha jiro then waxay kusoo qoraan waxaan raadinayaa qof aan partner ah oo aan yani la practice garayo luqadeeda yani waad helaysaa ma weynaysid haddii aad raadisid oo aad ugu talageshid so marka practice is very important midda ugu dambeyso markaan kula wadaaga waxay tahay consistency ama joogtayn yani waxay yiraahdaan consistency is the key waa furaha wax walbo yani joogtaynta waa furaha wax walbo so waxa aad rabtid in aad baratid ama waxaad rabtid inaad samaysid haddii aad joogtaysid guul aad ka gaaraysaa so marka shantaas qodob haddii aad samaysid waxay kaa dhigi doonaan in aad xasuusatid ama aadan hilmaamin wixii aad geengaraysay ereyadii aad baratay shantaas wado ayaan kugula talinayaa in aad samaysid si aad maaragtay u xasuusatid ereyada so marka luqadan waa luqad maanta ka dhigan in ay aqoon tahay oo kale yani it's like a knowledge today because haddii meel aadid haddii aad rabtid inaad wax qabsatid first thing first you have to speak English so waa inaad English ku hadli kartaa waxaan rajeynaya inaad maqaalkan wax ka faa'iideen shantaas qodobna aad naftaada ku dabaqi doonto si aadan u hilmaamin ereyada hal midna aadan ka hilmaamin erey kasto inaad xifdisid muhiim maaha erey qaar waxaa jiro useless ah waxba kuusoo kordhinaynin so do not waste your time waqtigaa ku dhamin waxyaalahaas so muuqaalada aan ku leeyahay youtube-ka gal waxyaala aad xiisisid daawo yani ereyada markaas halkaas aad ka geengarayn doontid waxay noqon doonaan ereyo daily life ah oo maaragtay aad kugu soo noqonayo aad u baahan tahay markasto inaad isticmaasho laakiin haddii aad google-ka tagto ama book aad soo gadato ay ku qoran tahay new words ama new vocabulary something like that yani waxaas waxba kama faa'iidaysid waxba kuma soo kordhinaya kuwaas sababtoo ah waxay ku siin doonaan ereyo useless ah oo markaas aanan waxbaada ka faa'iidayn oo waqti kaaga dhumaya so laakiin muuqaalka markii aad daawatid waxaa ka geengarayn doontaa ereyo markaasi kuugu cusub oo ah daily life oo markaas aad doonayso inaad isticmaashid so marka shantaas qodob ayaan jeclaysay inaan muuqaalkan kula wadaago waxaan rajeynaya inaad wax ka faa'iidi doontaan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay ha ka hilmaamin inaad subscribe dhahdo ama ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ah gaarsii waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan asalaamu calaykum